booqashadan maanta uu ku yimid Somaliland Augustine Mahiga ayaa ka duwan safaradii hore ugu iman jiray. booqashadan maanta ayaa ujeedadeedu ahayd in uu raaligelin ka bixiyo warqad ka soo baxday xafiiskiisa. warqadaas oo nuxurkay xambaarsaneed uu ahaa in ay Somaliland tahay maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya. haddaba Augustine Mahiga ayaa kulanay albaabadu u xiran yihiin waxa uu la qaatay madaxweynaha Somaliland Ahmed Mahmud Silanyo. kulankaasi kadib waxaas warbaahinta dibadda kula hadlay Augustine Mahiga oo sheegay in uu madaxweynaha Somaliland iyo shacabkaba uu ka raali gelinayo warqadaasi sida qaladka ah uga soo baxday xafiiskiisa. This time I've come with a different tone to meet the president, of course with the foreign minister, to express my deep regrets and extend apologies and accept responsibility for a letter which came from my office to the president with a gross clerical mistake. I've told the president that the day the letter was written, sent and signed electronically, I was not even in Nairobi or Mogadishu. I was actually in Cairo, Egypt, attending a conference there. But as usual, when you leave an office, there are people in the office and they are going to send a letter to announce the coming year of a UN delegation from New York. And in that letter, there was a serious mistake which was not corrected. Worse still, because there is an electronic signature in the office, they put my signature. That is why I'm saying I take responsibility because it came out of my office. I regret deeply and I extend apologies to the president, to the government, even to the people of Somaliland. geesta kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Abdullaahi Umar ayaa isna sheegay in ay ka aqbaleen raaligelintaasi. aad iyo aad bay xukuumadda Somaliland u soo dhaweynaysaa dareenka iyo jawaabta uu ka bixiyay Ambassador Mahiga warqadii xafiiskiisa ka soo baxday. waanan ogolahay ka xumaanta uu muujiyo leeyahay aad iyo aad baan uga xumahay. waanu sii wadaynaa wada shaqayntii ka dhaxaysay dawladda Somaliland iyo xafiiska jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa wixii naga khuseeya ka khuseeya dareenka iyo aspirationka iyo rabitaanka shacabka reer Somaliland.